waa qisadii ninkii xumaa ee welibana fadeexan jiray dumarka. Assalaamu calaykum daawade soo dhawow, waa anigoo ah Nadira Saciid. Haddii aad hore noola joogtay soo dhawow mar labaad. Haddii aad naga cusub tahay walaala adiga raaliya fadlan follow dhe page-ka, amase haddii aad YouTube-ka ka daawanaysidna subscribe dhe. Gabadh ayaa maalin telefoon waxay u soo dirtay meel xarun booliis ah. Nin ayaa ka qabtay. Ninkii waxay ku tiri waxaad iigu dhiibtaa telefoonka adigoo raaliya. Maxamed waa nin kaloo booliis ah oo isna meesha ka shaqeeya. Markii telefoonka loogu dhiibay gabadhii, ninkii waxay ku tiri waxaan rabaa inaan kaala hadlo arrin aniga ii gaara. Beri waxaa dhacday aniga iyo familygeygu inaanu ku nimid. Run ahaantii aad si fiican noola dhaqantay, wixii aanu kuugu nimidna si fiican aad noola qabatay. Maanta arrin baan kaa leeyay amase dan weyn baan kaa leeyay, waxaa rabaa inaan ku arko. Ninkii booliiska ahaa ayaa ku yidhi waad ii iman kartaa. Way balamayn. Gabadhii ninkii bay u tagtay. Waxay ku tiri waxaa jirta arrin aniga ii khaasa. Familygeyga amba saaxiibadey qofaan u sheegay haba yaraatay oo og ma jiro. Waxaan jeclaystay inaan adiga kuu sheego. Haye soo daabo ku yidhi ii sheeg waxaad ka cabanaysid. Gabadhii waxay ku tiri anigu waxaanay gabadh 30 sano dhaaftay oo aan haddana weli guursaneyn. Sababta maad garanaysaa bay ku tiri. Ninkii askariga ahaa intuu yaabay buu ku yidhi may ma garanaya sababta ii sheeg. Kadib waxay ku tiri nin waxaa jiray goobta shaqada aanu iska baranay. Ninkaas aad iyo aad baanu isugu fiicnayn. Xidhiidh ayaana naga dhexeeyay. Ninkaasi wuxuu iga helay muuqaalo iyo sawiro welibana oo aanan jeclaysan lahayn inuu iga helo. Ninkii markuu iga helay wuu kaydsaday welibana wuxuu sameeyey isagoo markasta iigu hanjabayanaya waxaan doonaya ii samee haddii kale waan ku fadeexadaynaya oo familygaaga iyo asxaabtaada ayaan u wada dirayaa waxaan social mediahana waan dhigayaa. Ninkaas intaasoo sano ayaan u xirxirnaa amarkiisa mooyaane wax kalena maan samayn jirin iyo wuxuu doonayo. Nolosheedana isagaa go'aan ka gaari jiray markasta, waayo wuxuu igu cagajuglayn jiray in sawirada iyo muuqaaladaas uu igu fadeexadaynayo oo uu bannaanka dhigayo. Sanado badan markuu arrinkaasi socday ayaa waxa dhacday maalin dhaweyd baan u tegay ninkii anigoo ka codsanaya inuu wixii iga hayay iska wada dhiliido. Waxaan ku yiri hebelow dhegeyso walaalo, anigu gabadh mustaqbal doonaysa ayaan ahay. 30 sano waan dhaafay. Nin ayaan isfahanay. Waxaan rabaa inaan guursado. Fadlan waxaad iga haysay oo dhan iga dhiliid oo iska ilaaw wixii ina soo kala dhex maray. Ninkii intuu wejigiisa isbedelay ayuu welibana igu xanaaqay isagoo igu qaliyo iguna hajabaya inuu leeyahay waan ku fadeexadaynaya naya ma guursan kartid. Wuxuu igu cagajuglay inaanan guursan karaynin. Aniguna waan sagayma anigoo murugaysan. Maalin kasta waan ooyi jiray. Dadnimadeydii iyo qofnimadeydiiba ninkaas ayaa haystaa. Askari ninkaas ayaan u xirxiranahay oo nolosheydii oo dhanba soo koobay. Maalin kasta anigoo murugaysan oo ooyi jiray, xanuunkayga qof og iyo qof i dareemi jirayna ma jirin oon u sheegay haba yaraatee. Gabadhii waxay ku tiri ninkii arrinkaas ay haystaa maxaad ii qaban kartaa? Mana rabo welibana in arrinkan la ogaado haddii aad gacanta la gasho. Ninkii booliiska ahaa oo run ahaantii arrinkan ka naxay ayaa gabadhii wuxuu ku yidhi arrinkan anigaa baadhaya, baadhitaan badan baan ku samaynayaa. Isdeji cid ogaanaysaana ma jirto laakiin isii ninkan informationkiisa gurigu dego sawiradiisa iyo nambarkiisaba. Gabadhii iyadoo naxsan warwarsanna ayaa waxay ku tiri aniga kugu soo warcelinaya. Markaan kugu soo warceliya askari baadhitaanka samee. Haye ayuu ku yidhi. Wuxuu qoray waraaq dacwad ah taasuu u diray ninkii gabdhaha fadeexan jiray, laakiin muu imanin ninkii waraaqdiina muu aqbalin. Maalin ayaa inantii oo ooyeysa ayaa askarigii soo qaraaday oo ku tiri askari run ahaantii arrinkan ka baqanayay wuu dhacay. Ninkii wuxuu sameeyey inuu familygeyga hooyaday iyo aabbahay uu tuso sawiradii iyo fiidiyoyadii. Run ahaantii wuu i ceebeeyey waanu i fadeexadeeyey. Hooyadayna way iga xanaaqsan tahay oo reerkaygii wejiga ma siin karo. Askari maxaa sameeyaa? Wuxuu ku yidhi adiga iyo hooyadaaba idinkoo wada socda ii wada yimaada. Way u wada yimaadeen. Hooyadii ayuu ku yidhi isdeji hooyo, inantaadu waa inan wanaagsan, waxaana qalad kuma laha. Aniga ayay ii soo sheegtay sidii aan wax uga qaban lahaa arrinkan. Inanta hooyadeed iyadoo habi ah ayuu ku tiri waxaan rabaa ninkaas in la soo qabto sharcigana lanoo mariyo. Haye buu ku yidhi anaa soo qabanayaa. Askarigii talaa ku caddaatay isagoo warwarsan oo wuxuu sameeyo garan la ayaa wuxuu yidhi markii hore arrinkan waxba kama qaban karin, ninkana ma qaban karin oo qof aan dembigii faraha kula jirin ma qaban kartid. Sharciguna kuma ogolaanayo, laakiin imaka ninkan waan soo qabanayaa. Askarigii wuxuu soo qortay waraaq qabasho ah oo ogolaansho ah.
ninkii gurigiiba ugu tegay waanu soo qabtay. Wuxuu keenay saldhiga, waxaanu weydiiyey su'aalo fara badan. Wuxuu ku yidhi dembigan adigu ma gashay oo ma leedahay? Ninkii wuu ka murmay, wuxuu yidhi maya, anugu gabadhan maba garanayo, waxaa sheegaysidna maba garanayo, dembigana ma gelin anigu. Ninkani show waaba nin khatara. Run ahaantii askarigii wuu yaabay sababtoo ah caddayn cadna gacanta kuma hayo. Askarigu wuxuu haystaa 24 saacadood oo keliyaata inuu ninkani u xidhnaado, welibana intaa yar uu xidhan yahay inuu caddaymo la taaban karo gacanta kaga dhigo. Askarigii wuxuu dib ugu laabtay bannaanka si uu ninkan gaadhigiisii usoo fatasho ugana helo caddaymo la taaban karo iyo nambarada gabadhan laga soo qaraacayo ee uu ka helay gaadhiga ninka ma ahaba nambaradii gabadha laga soo qaraaci jiray ee waaba nambaro kaleba. wax caddayna haba yaraatee kamuu helin. Ninkiibuu ku soo noqday oo haddana su'aalo kaluu weydiiyey. Ninkani waaba nin kibraani ah oo isla weyn, su'aal kasta iyo wax kastuu weydiinayna waa uu dafirayay. Ninkani 24 saacadoodna waxaa uga harsan askariga 2 saacadood. Talo ayaa ku caddaatay, wuxuu sameeyana uu garan waayay. Wuxuu tegay maxkamadda si waqtigan waqti loogu daro, xadhigiisa u xalaalaysto, waqti kalena loogu daro. Maxkamaddii ayaa waxay ku soo dartay 5 cisho oo keliyaata. 5taa cisho waa inuu ku keenaa caddaymo adag oo run ahaantii la aqbali karo. Ninkii askariga ahaa wuxuu iska sii watay baadhitaankiisii. Kadib wuxuu tegay ninkan gurigiisa si uu uga helo laabtooyo sawiro ku jiraan amase kaadhadh iyo nambaro. Gurigii dhinac kasta wuu ka baadhay, laakiin weli wax caddayna muu ka helin. Kaadhadhku ka helayna maba aha kuwii gabadha laga soo qaraaci jiray. Waqtiguna aad buu isku gurayay, keliyaata waxa u harsan waa maalmo. Waa inuu caddayn rasmi ah gacanta ku dhigaa. Ninkii askariga ahaa qorshe kale ayuu degay si ninkan beenaalaha ah sirtiisana la heli karin oo bannaanka u soo dhigo. Gabadhii ayuu u yeedhay, waxaanu soo geliyey qol ay ku jiraan niman fara badan oo saf ku jira iyo ninkii xumayn jiray gabadhan. Wuxuu ku yidhi ninkii waa kee ka soo dhex saar. Isla markiiba way ka soo dhex saartay oo ninkii waa kan bay tiri. Haddaba wuxuu ku yidhi waxaad samaynaysaa, ninkan ayaad iswaajahaysaan oo waan iska kin hor keenayaa si caddayn aan bartaa uga helo. Askarigani wuxuu doonayaa in ninkani uu khalkhal hadalkiisa galo amase uu naxnaxo markay gabadhu ku caddayso hadalka. Gabadhii ayaa ninkii ku qarxisay arrinkii oo dhan. Ninkanoo waaba nin khatara, wuxuu taagay yaa tahay. Isku kay sheeg, waxa ka hadlaysid ma fahmayo.